olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. maxaad oran lahayd madaxweyne dal oo malaayiin diin haysata ula dhaqmaya sidan marka hore baaritaan dhanka maskaxda isku soo samee waxaa sidaasi magaalada Kayseri ka yiri Mr Erdogan khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi Turkiga soo jeedinta madaxweynaha Faransiiska ee ahayd in dalkiisa laga difaaco muslimiinta xaq jirka ayaa ka caraysay dawladda Turkiga wuxuuna Macron u dhaqmayay sidii qof aan mas'uuliyad haynin ama hogaamiye ku jira loolan doorasho waana maalmihii ugu xanuunka badnaa ee joogitaankiisa xafiiska maxaa shakhsiga lagu magacaabo Macron daba dhigay islaamka iyo muslimiinta ayuu isweydiiyay madaxweynaha Turkiga Emmanuel Macron wuxuu u baahan yahay daaweyn dhanka maskaxda ayuu intaasi ku daray Erdoganka haysta dalka Turkiga dhanka kalena waxa uu saadaaliyay in xisbiga ama hogaaminta Macron uusan wax badan ka keeni doonin doorashada madaxweynimada Faransiiska ee lagu wada inay qabsoonto 2022 waana maalmaha adag ee uu hadda u diyaar garoobayo yoololahooda uu ku jiro madaxweynaha da'da yar ee Faransiiska doorasho ayaa ka dhici doonta Faransiiska waan arki doonaa waxa aad ka soo hayso uma malaynayo inuu hore u sii socon doono sababtoo ah waxuma ma qaban Faransiiska ayuu yiri madaxweynaha Turkiga waxaad mar walba farta ku fiiqdaa Erdogan tani maxay faa'iido ku keenaysay ayuu yiri madaxweynaha Turkiga isagoo la hadlaya dhigiisa Faransiiska dalka Turkiga ayaa aqlabiyada dad ku nool waxa ay yihiin muslimiin isla markaana Turkigu waxa uu xubin ka yahay gaashaanbuurta NATO waana dal awoodiisu si baaxad leh u soo kordhayso Turkiga ayaa dadaal u galay inuu ka mid noqdo dalalka midowga Yurub laakiin wuu ku guul daraystay hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay iyo jawaab celin khudbadda madaxweynaha Faransiisku kaga hadlay arrimaha islaamka taas oo shaaca kaga qaaday qorshe uu ku doonayo inuu ku meel mariyo sharci adag oo uu sheegay inuu ku xakamaynayo waxa uu ugu yeeray muslimiinta gooni goosadka si uu difaaco mabaadi'da cilmaaniga boqolaal qof ayaa siyaabo kala duwan u wadaagay hadalka madaxweynaha Faransiiska laakiin jawaabta ka timid xagga Erdogan ayaa ayana mid si weyn caawa baraha bulshada iyo warbaahinta loogu wadaagay Aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız.